Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddaba muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay nin aad u necba islaamka kadibna isbedelay oo isku bedelay nin muslim ah. Sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadkii mamnuucay in dumarku ay xidhaan niqaabka. Haddaba kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Ninkan ayaa lagu magacaabaa Joran van Cleveren. Waxa uu ka soo jeedaa dalka Holland, waxaanu ka mid ahaa dadka ku jira siyaasadda. Waxaanu caan ku ahaa ama dadku ay ku wada yaqaaneen in uu aad u necbaa diinta islaamka. Sidoo kale wuxuu soo dejiyay sharciga ah in gabdhaha Holland jooga islaamka ah in aysan xidhanin niqaabka ama indho shareerka sidaad u taqaanaba. Ninkan ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Amsterdam 1979. Shaqadii ugu horeysay uu qabtana waxay ahayd macalinimo. Kadibna waxa uu ku biiray siyaasiyiinta. Waxaanu ka mid noqday xisbiga la yiraahdo Xorriyadda Darteed. Xisbigaasna wuxuu ahaa xisbi aad u neceb islaamka. Waxaanu ahaa xisbi ka soo horjeeda dalka islaamka. Waxaanu ahaa xisbi ka soo horjeeda dadka islaamka ee ku nool Holland. Marka uu siyaasiyiinta ku dhex jiro waxa uu ku tilmaami jiray islaamka inay yihiin argagixiso. Kadib waxaa dhamaaday muddadii lagu talagalay in uu fadhiyo kursiga. Waxaanu sameeyay xisbi kale, laakiin xisbigaas waa uu ka mid noqon waayay baarlamaanka dalka Holland. Markii ay u suurtagali weyday inuu xisbigiisa ku biiro wadanka, waxa uu ka fadhiistay siyaasadda. Kadibna waxa uu qoray buuggaasna waxa uu kaga soo horjeeday islaamka. Kadib waxa uu isku dayay in uu baaro waxyaabo khaladaad ah oo ku jira kitaabkeena Quraanka. Sidaan ognahay kitaabkeena Quraanka wax khaladaad ah kuma jiraan, xataa alif yar kama khaldana. Waxa uu isku dayay in uu soo qaato kitaabka Quraanka in meelaha qaar ay ku jiraan khaladaad. Kadibna waa uu ka waayay. Marba waxaa kasii dhammaanayay xumaatadii uu u qabay islaamka. Ugu dambeyntii markii uu akhristay kitaabka Quraanka oo 30 jisba uu macnahoodii iyo wax kastaba uu akhristay iyo tafsiirkiiba, waxa uu ogaaday in diinta dhabta ay tahay diinta islaamka. Kadibna sidaas ayuu ku islaamay. Haddaba muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. haddii aad muuqaalka ka heshay like saar, sidoo kale u sii share garee asxaabtaada si aan u helno daawadayaal fara badan. Channelkana subscribe saar. mahadsanid.